kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku sugannahay Janaal Maxamed Abshir International Airport caasimadda Puntland ee Garowe u yihiin soo dhaweynta aabaha la dagaalanka qaadka Abuukar Cawaale Qaadiid waxaan leenahay ku soo dhawaad caasimadda Puntland ee Garowe walaalkeen Abuukar Cawaale oo kamid ah bahda saxaafadda marna waxa weeye gudoomiyaha la dagaalanka maandooriyaha qaadka waxaan leenahay Abuukar ku soo dhawo Puntland ku soo dhawo Garowe ku soo dhawo magaaladaadii qalbi furan iyo waxa weeye niyad saafiyan ku soo dhaweynaa waxaan ku leenahay soo dhawo ku soo dhawo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo shacabweynaha reer Puntland khaasatan caasimadda Garowe ee isugu soo baxay fantasiyaha iyo soo dhaweynta ama lagu weyneynayo suxufi Abuukar Cawaale Qaadiid shakhsi aad u wanaagsan society-ga iyo mujtamaca Soomaaliyeed dhexdeeda magac iyo masab ku leh nin hindisay inuu la dagaalo halka maandooriyaha ee shacabkeena iyo dadkeena iyo dalkeena baabiyay ku guuleystay goobo badan wadamo badan oo ay ka mid yihiin Yurubta xoogeeda oo Ingiriisku ugu dambeeyay ayuu ku guuleystay baalka inuu ka ciribtiro oo qoysaskii kala baariday ee waqtiga faraha badnaa kala maqnaa ay isu soo noqdaan Soomaaliya mujtamaceedana waxa weeye shakhsi aad iyo aad ugu weyn magaalo walba iyo goob walba iyo gobol walba shakhsi waxa weeye qiimo kula weeye aad baan ugu faraxsanahay hadaan nahay reer Garowe inaanu maanta airportka taaganahay oo aanu soo dhaweyno sharaf bay noo tahay Abuukar waxaan ku leeyahay ku soo dhawo Puntland ku soo dhawo Garowe ayaan waxaan ku soo dhaweynaynaa mudane Abuukar Cawaale Qaadiid ku magac dheer Qaadiid ku soo dhawow magaaladaadii garoonka Maxamed Abshir baan ku soo dhaweynaynaa maanta soo dhaweyn balaaran ku sameeynaa anagoo ah dhammaan shacabweynaha reer Garowe hawshaadana halka ka sii wad qaadka wali Soomaaliya waxa weeye waxa la rabaa inaad meel badan ka joojisid insha Allah hadii Allah idmo وانكو دهدايو انكو لا دهو روحاد قشي سيدا دبيقايو دول حريريان كهدو غنايا waxaan aad ugu faraxsanahay maanta markii ugu horeysay airportkan diyaaradda anigay sideynay ka soo degatay diyaaradda qaadku inaysan iman waxaana leenahay dawladda Puntland diyaaradda qaadka oo maqnaatahay waa ilmahoo quraacda waa dadkoo shaqo taga waa bahalkoo gabaabsi noqda waxaa la qiyaasaa 70% qaadka iman jiray inuu hoos u dhacay dadkoo xayi noqda askartoo xayi noqotaana waxay ka mid tahay tayeenta iyo tiigsiga lala rabo Puntland inay hore u socoto aad baan ugu faraxsanahay xataa haddaad indhihiina saa u fiirisaan waad arkaysaan garoonku inuu si nadiif u yahay wax haraga iyo wax daatay ma arag askarta laftigoodu maaragtay waa fresh bay u yihiin marka qaad dhibaatadiisa taasaa ugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa sidaas uu nooga maqan yahay inuu nooga maqnaado bulshada waxaan leenahay meel uga soo wada jeesta hooyooyinkiina waxaan leeyahay wiil xoolo mabadarood u jeedaan oo qaad cunaa gabar ka soo dad orad iga taga dhax gabar ku siisan maayo shaqooyinka waxaan leenahay iyo kambaniyada nimaad ogtihiin oo qaad cuna oo aan waqtiga ilaalin karin oo han weyn lahayn oo saa u malabsanaya xoogaaga til ku jira intuu la bixi lahaa shaqada isku siin ummadda markaan saas leeyahay waxaan takoorayna waa qaadka qofka looma dallaa waxaa la rabaa baalkan in meel looga soo wada jeesto dalal baa naga dhistay hospitaallo iyo garoomo iyo diyaarado iyagoo u shaqeeya annaguna saddex qad baan aqli ma aha lacagteena waddan kale la geenaya marka meel ha looga soo wada jeesto gabdhaha dhalinyarooyinka meelaha maanta igu soo dhaweeyay waxaan leeyahay idinkuna meeshaas ka bilaaba maanta oo kale
ololuhu waa wejiye badan yahay huruufkuba hiil waa galaa waan leeyahay nin qaad cuna marka aragtaa saa iska siin jirtay nin yaqaane ahay tusa inayna raalli ka ahayn marka haddii alla ku idmaayo xilli walba iyo xeelad walba waa in lagula dagaalaa ragga odayaasha akhyaarta dhalinyarada aan qaadka cunin ninka qaadka cunin waa inay iska aruuriyaan riyo orad naga tagniyo xoolo badriyo waa in macnaha la tusaa qofkani ma xuma waa wiil Soomaaliyeed laakiin waxa uu faraqa ku wataa waa xun yihiin marka guul baan idin rajaynayaa goobo badan baan isugu imaan doonaa waxaan maqlay saxaafadda ka maqlaayay ninkii Abuukar waa imaanayaa waa musharax arrintaas baan jeclahay inaan kelmad ka dhaho anigu muddo badan baan bannaanada taagnayn xafiisyada lahayn warqaadka waxa laga qabto waa la gaaraan leenna waqtiga aan gudaha fariisan lahayn miiska go'aanka lagu gaarayo ama qaadiid ha ahaado ama qaadiid tiimka qof kala mid ha ahaado ama aan ergad dirsanno hawshaas waa ku tala jirnaa laakiin macnaheedu ma aha inaan anigu musharax ahay laakiin go'aanada miisaska lagu gaaro inaan dhex fariisanno oo ururku door ku yeesho oo haween matala yeesho oo rag matala yeesho